asturnaan xitaa iyada oo xanuunsan. waxaa jeceshahay inaad wax ka ogaato qisooyinka iyo sheekooyinka gabdhaha walaalaha ah ee saxaabiyaadka ah. maantana waxaan kaaga sheekayn doonaa mid ka mid ah gabdhahaas, balse waxaan kaa dalbanayaa sheekadan si aad ah ula soco, aadna u qiimeey. cabdullaahi binu cabbaas radiyallaahu canh ayaa mid ka mid ah ardaydiisa oo lagu magacaabi jiray cadaa binu abi rabaaxa wuxuu ku yidhi, ma ku tusaa naag ahlu janno ah? cadaa wuxuu yidhi, dabcan haa. cabdullaahi binu cabbaas radiyallaahu canh ayaa fartiisa wuxuu ku fiiqay markaas naag, wuxuuna yidhi, marwadaasi waxay u timid nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxayna ku tiri, nebigii allow, waan miyir daboolmaa, markaasna waxaa faydmo cawradayda, ee rasuulkii allow, alle ii bari inuu caafimaad i siiyo. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu ku yidhi markaas, haddii aad rabto waa sabraysaa, markaasna waxaa helaysaa janno, haddii kalese alle ayaan kuu baryaa si uu kuu caafiyo. waxay tiri, waan sabrayaa marba haddaan janno helaayo, ee rasuulkii allow, marka aan miyir daboolmo cawradayda ayaa feedmayso, ee alle ii bari si ayna u feedmin cawradayda. nebiga ayaa u duceeyey markaas. saxaabiyadda gabadhaas walaashaa ah waxaa hayay xanuun miyir daboolan ah oo qofka iska suuxaayo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa iyada oo socoto ay miyir daboolantay, markaasna dhulka ayay ku dhacday. intii ay suuxsaneed xijaabka ayaa madaxeeda ka dhacay, waxaana faydmay qayb madaxeeda ka mid ah. waxay u tagtay markaas dhakhtarka qalbiyada iyo jirka oo suubanaha sallallahu calayhi wasallam ah, iyadoo u sheeganayso dhibkeeda. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu kala dooransiiyey laba arrimood: inuu caafimaad ugu duceeyo ama inay sabarto, abaalmarka sabarkeeduna uu noqdo janno. maadaama gabadhaas saxaabiyadda ah waxa ugu qaalisan agteeda uu ahaa janno, waxay dooratay inay sabarto, balse waxaa la wanaagsanaan weysay in cawradeeda ay muuqato marka ay suuxdo, dadkun ay arkaan, iyadoo og in allah subxaanahu wa tacaala uusan u qabanaynin wax awooddeeda ka baxsan, uuna u xisaabinaynin. nebiga ayay ku tiri, ii duceey. saxaabiyadda, iska ilaali inaad cawradaada ku xadgudubto, timahaagana aad tusto ragga si ay u daawadaan. ha noqonin badeeco suuqa taallo oo ay ragga indhahooda ku cunaan. ha yareysan naftaada si aadan alle agtiisa ugu yaraanin. iska ilaali xijaabka qaawan, kaasi waa xijaab soo muujinayo wax badan oo cawro ah oo uu xijaabka caadiga ah qarin jiray. xijaabka caadiga ah kuma koobno oo keliya in madaxa la daboolo. xijaab lama dhihi karo marada marka aad xirato aad la mid noqonayso naagta qaawan oo kale. istiraashada yar ee madaxa ku xiranayso ma ahan xijaab. iskudayska aad ku soo bandhigayso jirkaaga ma ahan xijaab. madaxa oo keliya inaad qariso kuma noqonaysid gabar xijaaban. marada xijaabka u eg ee lagu magacaabo iskudayska, iyadana haddaa xirato ma noqonaysid gabar xijaaban. xijaabku waa maro wax asturto oo aan la arki karin, lana tilmaami karin waxa ka hooseeyo. laakiin inaad qoortaada qaawiso, suxulladaada aad muujiso, ama lugahaagaba aad banayso, taasi lama dhihi karo xijaab, ee waa maro faashiyoon ah. lama dhihi karo xijaab diineed, mana ahan xijaabkuu rabbigaa ku amray. saxaabiyadda, gabdhihii walaalaha ahaa ee saxaabada nebigeenna sallallahu calayhi wasallam ka midka ahaa, waxaa aad ugu adkayd inay lugahooda muujiyaan ama ay qaawiyaanba. marwo ansaarta ka mid ah ayaa waxay tiri, nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin wuxuu u soo galay Ummu Salama isagoo caraysan. waxay tiri, waxaan degdeg u qaatay dharkayga. u fiirso gabadhan, waxay daboolanaysaa wejigeeda marka uu soo galay nebiga sallallahu calayhi wasallam. waxay ka xijaabanaysaa nebiga sallallahu calayhi wasallam isagoo weliba ah midka ugu daahirnaanta badan khalqiga alle. sidoo kale waxay og tahay nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu yahay kan ugu alle kacabsiga badan. maalin maalmaha ka mid ah, xafsa bintu cabdiraxmaan bin abi bakar ayaa waxay u timid nebiga xaaskiisa caaisha oo eedo u ahayd, iyada oo wadato indhashareer khafiif ah oo wejigeeda laga arkaayo. caaisha ayaa markaas ka jeexday, waxayna ku tiri, ma arkin miyaa
suuratu nuur wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey, kadibna waxay siisay mid adag. Bal ka waran haddii hooyo Caaisha ay ku arki lahayd adiga oo wato xijaabka aad xirato, maxay kugu samayn lahayd? Ilaahay ka cabso saxaabiyadaay. Gabadha uu dhalay Nabiga sallallahu calayhi wasallam, Faadima bintu Muxamed, iyada oo sakaraad ah ayaa waxaa u timid marwo ka mid ahayd dumarkii u hijrooday dhulka Xabasha. Faadima ayaa waxay tiri, waxaa aad ila qaab daran dumarka markay dhintaan waxa lagu sameeyo. Dusha ayaa waxaa laga saarayaa dhar, markaas ay arkayaan ragga. Marwaday ka timid Xabasha ayaa waxay ku tiri, ma ku tusaa waxa aan ku soo arkay dhulka Xabasha. Waxay soo qabatay laamaha geedka timirta, nacashkii ayay geesaha ka gelisay, korna waxay ka saartay maro. Faadima ayaa ka heshay markaas oo tiri, alle qurux badana. Gabadha nabigeena sallallahu calayhi wasallam waxay ka baqaysaa in jirkeeda meelaha lagu arko, xitaa marka ay dhimato. Gabar saxaabiyad ah iyada oo nool, sidee raqiis u noqon kartaa markaa? Gabar saxaabiyad ah iyada oo nool, sidee raqiis u noqon kartaa markaa?